السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال ميل كستوتي كلا جوكتانا دونك الدعالة ديسا وقتكم هيدين وعنادو سيدي عادة إنو أهيد موقال عصوب بيان إذي لو داقيا عنوان كان موقال كان وحوي براروكا مييركا موادين كالرير جيبوتي غارهان ميدكا كسو جيدا ديغانهان إيكا وداش waxaa jira weerooyin amba laba weero oo soo noqnoqda oo maskaxda ka qabsaday muwaadinka reer Djibouti gaar ahaan kuwa deegaan ahaan ka soo jeeda oo ay ku celceliyaan waa tani ay leeyihiin Djibouti taakul ciyaalaha wa tarabbi ciyaal naas Djibouti ubadkeeda cuntaa laakiin ubadka dadka kale korisaa iyo mid kale jirto oo leeyihiin maxaa naloo dilayaa maxaan galabsanay maxaan ku sameynay dadkan saa noo galaya labadaa weer amba labadaa weerood ayaan rabaa inaan ka hadlo waa laba khaldan wey oo dib u dhigay qofka muwaadinka reer Djibouti waa waxa sababaya qofku inuu noqdo qof isdhiibay oo quusta qofku inuu quustana lama rabo waxaa la rabaa qofku inuu rajo yeesho ay u horeyso waxa weeye rajada ilaahay inuu ilaahay jiro نصر إلهي إيمان كرو نحرس إلهي إيمان كرتو إلهي نقف كل جرو وقوليستا لكن أنت أدون كان جوغنا وامتحان هاي امتحان كان أنت كجرنو حتى كفشلنو الدنيا آخرة والخسارينا الدون والدلي إياه وحن كجرنا الظالم أيها مركز تنوطلين وصدودون نغيالي آخرنا وأنه إلهي دوح الله هرتغنا ما هي سنة ويدعادهم أنه هينو مسو شقيسا intaan noolayn marka weedha u horeysa hadaan ka hadlo tani leh Djibouti ubadkeedii cuntaayo ubadka shisheeyaha korisaa waa weed beenaway waxay ku beenowday muwaadinka reer Djibouti ee deegaan ahaan ka soo jeeda iyo kan u dhashayba isaga ka sii jeestay dalkiisa dadkii naga horeeyay ee dalkan u halgamay naftoodii bay u horeen dalkan waa inaa wax siiso soo isaga wax ku siiyo marka shakhsi walba waxaan rabaa inuu isweydiiyo sida anigu way isku weydiiyo su'aasha maxaa dalkan u qabatay ugu yaraan waa in talkaaga laga helo hadal waa in laga helo fikrad waa in laga helo cudud gacan laga helo waa in garab waa inaad wax contribute waa inaad wax laga helaa oo la qaybtantay bulshada aad qaranka aad galiso laakiin haddii aad tiraahdo qoshi maxaa naga garanaka dalkii shisheeya dad shisheeya ku nool wadankan la korinaya de mid kasto muwaadin oo deegaan oo reer Djibouti ka soo jeeda hadduu saa u hadlo waa ay kani badbaadinaya marka waa ay cid u maqan marka mid kastaba saas uu ku leeyahay shisheeya wadanku korinaya shisheeya wax la siinaya shisheeya wax loo qabanaya taas waxay ku noqotay caqabad sida ugu celcelinayeen ayay obstacle base ku noqotayba caqabad bay ku noqotay markaas qalubtoodii wada qabsatay ay markaa bay sababtay inay qaaribal wada yeeshaan qaar jaad cunaya muqaadaraad kale ku daraya kuwa mataqana guryaha qaawsaya kuwa khalkhalsan kuwa maxaa ku dardaran kuwa fikradii waashay yani nooc kasta waxa u badan waa muwaadinka reer Djibouti ee deegaanaha ka soo jeeda waa fikradu xadishi waa fikradu xaqiiqi ka rabtay intooda badan waxay ku nool yihiin guryo aabayaashood ee soo shaqeynayeen amba hooyayaashood ee baycmashir ku jireen markay gaboobeen dadkii halkii ratradkooda lagu nooliyay taasa lagu hoos yeeshay caruur markaas lagu leeyahay muxuu wadanka wanaag noo qabtay war waxaa naga galana ka shisheeyo korinaya wadankii markuu mid kasto muwaadin san iraahdo de maxaa markaad sugaysaa waxaad sugaysaa cidaad ka sugaysaa naxariis waa ayo makani soo galitiga makani aad maalin daraari habeen aad caayisi kani aad ka leedahay kol aad ku tilmaanto jiiq kol aad ku tilmaanto maxaa ku rahdaa soo galiti kol aad ku tilmaanto waxaad doonti ka leedahay aad canaananayso caayis sadbiqisayso barina ku hormaray ku dulmaraya ee ku talinaya adiga Ismaaciil Umar Geele waa ninkii shalay dadka deegaanku caayeen eryanayeen ee maxaa ku rahdaa meel kasta ka saarayeen ee duleynayeen waxba lagama soo qaadi jirin shalay hay maxay sameeyeen odayadii saas sameeyay maxay maanta ku dambeeyeen wanaga wada hooseeyaan isagina muxuu joogaa ku jooga isagana haysta maanta waa nin shalay laga tucsanayay maxaa ku rahdaa la bahdilayay maxaa ku rahdaa la caayay oo laga oran soo galeeti baa tahay matihi qof wadanka u dhashay xabashi baa tahay waxan baa tahay la oranay ayay iyagoona ubadkooda waxba u diyaarin ayay kii nagu sii daayeen ee bannaankii meedaankii siyaasadda u baneeyeen
markaasay de waxaan baan dhaxalnay annaguna wadadii baan saaranahay mid kastaba wuxuu sugayaa inuu qof kaloo shisheeya u badbaadiyo kani shisheeya ku badbaadi maayo aan tariigiisu socda danihiisu socda markuu arko inuu ka gacan sareeyana uu kugu joogsanday ma doqon baa ma ku deyn marka waxa weeye walaalayaal waa in maskaxdeena laga meero doqonimadan na qabsatay ee la leeyahay wadankii muxuu anaka noo qabanaya war wadanka adu maxaad siisay de horta isweydii su'aasha maxaa wadanka siisay adu agoon ma gargaartay qof wax ma u qabatay iska daaba qof shisheey naftaada maxaad u qabatay adu waajibaadkaagii ma samaysay waajibaadkaagii ma taqaanaa bani aadamtinimo ma samaysay may marka waxa weeye muwaadinka reer Jabuuti aqligu ha shaqeeyo dib ha loo soo noqdo kelmadana Jabuuti ciyaalka ubadkayga cuntay ubad shisheeye kurisaa ubad shisheeye ka faa'iideystay waxay garteen sidii wadanka looga fara qabsanay adu halkaad leedahay qoshi maxay ka galaani meedaankii siyaasadda u wada baneyseen bal eega muxaafidkii mucaaridku waxa haysta wada soo galiti ila isticmaalkii bay ku haystaan halka kuma qantay adu marka maxaa kuma qantahay maxaa ku seexiyay hadduu shalay aabaa bacmushtar ahaa hadduu shalay aabaa xoolo lahaa hadduu shalay aabaa shaqaynayay maanta adu maxaad qabatay kusoo biis maanta ada aabaa awow haddaad haynba marka waxa weyniyow dib aan isku noqono haan isku fiirsano khaladku anaku naga bilaamay anakuna nagu dhamaada waxaan kalead arkaysiin ee xumaata shilka waa fara ku tiris waa 0.5 waa ibar dhibic 5 iyo ka yihiin boqolkii faa'iido male marka haddii loo kaco waa la iska qaadi karaa laakiin dadka ficilka yeelan lahaa waxa ka dhaadhacsan wadanku muxuu aniga qabtay in kastaba lii siduu wadanku wax kuu qabto walaalkay iyo walaashay deegaan ahaan ka soo jeeda Jabuuti iyo tani kan u dhashayo iyo kan ku dhashayo waa inaad dalkan wax gelisaa naftaada hor sida ubadkaaga u badbaadaan naftaada hor sida ay walaalaha u badbaadaan naftaada hor ubadkii aad adeerka ahayd kuwa abtiga ahayd u badbaadaan bari masiir fiican u sameystaa u yeeshaan taasaa laga rabaa kelmadan kale ee la leeyahay maxaana loo beegsanaya maxaa sameynaa anaku war su'aashaas waa su'aal khalada waxa loo baahan yahay inaad identifiyeyso ood garato horta cadowgaaga sadiiqaa kala garo wa ay kan ku dilaaya markaad garato qofkan ku dilaaya hadduu doonin wuxuu ku dilayo waxaad ku dhaqaaqdaa sidii aad kaga qaban lahayd il faut le neutraliser d'abord il faut l'identifier après le neutraliser ma noqonaysa haddii kala de masa un baa loo daawanay ma cid shisheeye la sugi ma la sugun qof shisheeye inuu imaaduna badbaadiyo soo galitiga shalay noo imid qaraabaha aan ahayn ilmaadeer aan ahayn maabti aan ahayn waxa doontaa noqonay wadanka u dhalan waa kuwan maanta soo noqoleen arkaysi kii kugu dhawaaba saa ku galay ku shisheeyna maxaad ka sugi marka walaalayaal waxa laga bedelo san doqonimadan maskaxdeena haysata han ka meerno waliba waxa noogu daran kuweena tacliinta bartay kuweena cilmiga maadiga cilmiga maxaa ku diiniga bartay waa kuwa noogu sii daranba iyaga noogu sii dulaysanba aqoontoodii waxba ma soo kordhin in qofku markuu lafta ka yahay ma taqaan doqon wuxuu doona waxbarasho haduu yeesho waligii wax ma hagaageen marka wada doqmihii baa wax bartay in u fiirsatay ma garanay inta cilmiga baratay wax baratay ee dadaashay waa intii noogu doqonsaneedo cid kasta shoofirinaysa ay kasiya doofaar kasta daba boodayaan xagga aqli la iman lahayn farsamo keeni lahayn meesha wax ku soo kordhin lahayn hal kabri dalka kuma soo birin aqoonyaanka Jabuuti halkaas ay wada fadhiyaan wada fooraraan ku daba dhilif noqday iyo ku fikrad ay dishay marka waxaan ku soo xidhay hadalkayga walaalayaal ilaahi qoomna ma duleeyo ilaahina qof nafna ma duleeyo ilaahiyadu isdulaysa mooyaan ilaahu naga eedlaayahay taa horta hal wada fahma ilaahay uu naga eedlaayahay moondaagan lixaadna hadduu soo noqdo hoogiini tan aad ku jirteen tu ka sii daran baa idin soo socota waa inoo ballan haddii kale wax ka bedelaysaan oo fikiraysaan marka idinku isbedeshaan ragganna way isbedelayaan cabsi baa haysa habeenii dheeraan waxay ku seexdaan ku soo toosaan goormaa la kici goormay nagu baraarugayaan goormay mudaharaad sameynayaan goormay kacdoon sameynayaan iyo ku fikiraan walwalbay ku seexdaan idinkiina ma siinisiin idinkiina waxaad wadanku muxuu qabtaa aniga maxay naloo dilayaa maxaan galabsanay anaku waan ku shaqaynaaba ismaaciil aabba ismaaciil baad haysiin niyo hurdada ka kaco naftiina duleyseenay madaxa kor u qaada oo ma taqaanaa go'aan mid si wada jirana gacmaha isku qabsado is xoreeya xorriyadu gacantiina ku jirtaa اللهم هل بلغت ما اتربى ماشى تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته